Itoobiya ayaa korontadii u horeysay ka bilowday biyo xidheenka Niilka Buluuga. Suudaan iyo Masar ayaa biyo xidheenka u arka mid khatar ku ah, balse Itoobiya ayaa dhankeeda u aragta mid lama huraan u ah horumarka dalkeeda. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si rasmi ah u daafuray wax soo saarka korontada laga sameeyay biyo xidheenka weyn ee webiga Niilka Buluuga ah, taasi oo ah mid taariikhi ah oo ka dhalatay mashruuca balaayiinka dollar ee lagu muransan yahay. Abiy Ahmed oo ay weheliyeen saraakiil sarsare oo xukuumaddiisa ka tirsan ayaa booqday xarunta tamarta laga dhaliyo waxaanu taabtay badhamada shaashada elektarooniga ah. Tallaabadaasi oo ay mas'uuliyiintu ku sheegeen inay bilaabeen wax soo saarka ayaa waxaa dhisay dadka reer Itoobiya, balse ma ahan mid kaliya loogu talagalay dadka reer Itoobiya ee waxaan sidoo kale gaarsiin doonaa dhammaan wadamada Afrikaanka ah ee aanu deriska nahay, ayuu yidhi sargaal ka hadlay furitaankii xafladda. Maalintii uu qof kasta oo Itoobiyaan ahi naftiisa u huray ee uu u duceeyay waxay ahayd rajo, balse maanta waxaan joognaa daafurkii, ayuu hadalkiisa ku daray. Biyo xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam ayaa lagu wadaa inuu noqdo mashruuca ugu weyn ee korontada laga dhaliyo Afrika, balse waxa uu udub dhaxaad u ahaa khilaafka gobolka tan iyo markii ay Itoobiya bilowday sanadkii 2011. Wadamada deriska la Itoobiya ee Masar iyo Suudaan ayaa u arkay biyo xidheenka mid khatar ku ah sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin biyaha Niilka, halka Addis Ababa ay dhankeeda u aragto inuu muhiim u yahay dalka Itoobiya dhanka korontada iyo horumarkiisa. Mashruucan oo ku kacaya 4.2 bilyan oo dollar ayaa ugu dambeyn la filayaa inuu soo saaro in ka badan 500,000 oo megawatt oo koronto ah, taasi oo ka badan 2 jibaar wax soo saarka korontada ee Itoobiya. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in biyo xidheenka oo dhererkiisu yahay 145 mitir oo ku yaala webiga Niilka Buluuga ah ee gobolka Benishangul Gumus ee galbeedka Itoobiya oo aan ka fogeyn xuduudda Suudaan uu bilaabay inuu dhaliyo 375 megawatt oo koronto ah. Mid ka mid ah marwaxadaheedu maanta oo Axad ah, Masar oo ku tiirsan webiga Niil ilaa 97% waraabka iyo biyaha la cabo ayaa u aragtay biyo xidheenka Itoobiya mid khatar ku ah dalkeeda. Suudaan ayaa dhankeeda ka walaacsan in mashruucani uu horseedayo fatahaadaha sanadlaha ah ee ka dhaca Suudaan, iyadoo oo sidoo kale laga cabsi qabo in biyo xidheenada ay waxyeello soo gaadho iyadoo oo aan wax heshiis laga gaadhin howlgalka biyo xidheenka Abiy ee Itoobiya. Labada dal ayaa Itoobiya cadaadis saaraya iyagoo oo dabada ka riixaya in heshiis rasmi ah laga gaadho buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xidheenkan weyn, balse wada hadallada oo ay garwadeen ka ahaayeen Midowga Afrika ayaan wax natiijo ah laga dhalin muddooyinkii la soo dhaafay. Biyo xidheenkan ayaa la bilaabay xilligii ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Meles Zenawi oo ahaa hogaamiyihii xukumayay Itoobiya in ka badan 20 sano ilaa uu ka geeriyooday sanadkii 2012. Shaqaalaha rayidka ah ayaa mashruucan ku darsaday 1 bil mushaharkeeda sanadkii la bilaabayay mashruuca biyo xidheenka, iyadoo oo wixii markaasi ka dambeeyay ay dawladda Itoobiya soo saartay qorshe lagu bartilmaameedsanayo dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa si ay gacan uga geystaan dhismaha biyo xidheenka. Samuel Getchu oo ah saxafi madax bannaan oo Addis Ababa ku sugan ayaa warbaahinta caalamiga u sheegay in uu yahay mashruucii ugu weynaa ee ay Itoobiyaanku ka qayb qaataan. Tani waxa loo arkaa in ay soo dhaweynayso waxa ay Itoobiyaanku ku taamayeen oo ahaa inay noqdaan qaran isku filan, ayuu yidhi. Saraakiisha ayaa Abiy Ahmed ku ammaanay in uu dib u soo nooleeyay biyo xidheenka kadib markii sida ay sheegeen ay maamul xumo soo food saartay, taasi oo dib u dhigtay horumarkiisa. Dalkeena wax badan ayaa ka lumay sababtoo ah biyo xidheenka ayaa dib u dhacay, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka mashruuca, ayuu yidhi Kifle Hiro. Xubnihii ka soo qayb galay furitaanka xafladda ayaa waxaa ka mid ahaa marwada koowaad ee madaxweynaha, madaxda aqalka hoose ee baarlamaanka iyo maxkamadda sare, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo wasiiro ka tirsan dawladda. Geedi socodka buuxinta kaydka baaxadda leh ee biyo xidheenku waxa uu bilaabmay sanadkii 2020 iyadoo Itoobiya ay ku dhawaaqday bishii Juun ee sanadkaasi in ay gaadhay hadafkeedii koowaad oo ahaa 4.9 bilyan oo mitir kuyuubig. Wadarta guud ee kaydka awoodiisu waa 4.7 bilyan oo mitir kuyuubig. Bartilmaameedka 2021 wuxuu ahaa in lagu daro 13.5 bilyan oo mitir kuyuubig. Bishii July ee la soo dhaafay, Itoobiya waxay sheegtay inay gaadhay bartilmaameedkaasi, taasi oo la micnaa inay jiraan biyo ku filan oo ay ku bilaabi karto soo saarista tamarta, inkasta oo khubarada qaar ay shaki geliyeen arrinkaasi.